waan ku faraxsanahay in maanta ay dad badan yimaadeen meeshan oo laga mudaharaadayo cunsurinimada wadanka ku soo badatay Yurub ku soo badatay iyo adduunweynaha kalaba iyo yani waxa hadda sheekadii New Zealand ka dhacday ayadoo xagan laga hadlay wax badan oo xitaa Norway dhexdeeda cunsurinimo aad u badan inay jirto yani hadana laga wada shaqaynina ay yani inagoo dib ina haysatay ay tahay waan ka xumahay inay runtii Soomaali badan maanta ayaan meesha ka soo qayb galin waayo Norwaychida u badan because waa dhibaato inaga ina haysata horta hadaan siiba dad madownahay iyo hadaan dad muslimiina nahayba waa laba wax oo isugu keen darsanmay weeye waxaan maanta meesha wax yar ka jeedinayay amba aan dadka u baraarujinayay in yani cunsurinimadu ayan ahayn yani waxyaalo meel kale kula kulmaysid laakiin iyo wax habeenka kansha kugu dhaca laakiin inay tahay wax subaxnimo maalin sabti adoon xitaa filaneen inay kugu dhici karto aniga igu dhacday 22 September anigoo dukaanka u socda 10 barkii subaxnimo bay ahayd ayaan dukaanka tagay kiwiga oo tayan ku yaala baan isdhaahday ka soo adeego marka maanan yani aanan ka fiilanaynin inay yani waxaan oo kale ay dhacayaan dukaankan galan waan soo adeegtay markaan soo baxay ayaa waxaan arkay qof dumar ah oo yani ma arkin runtii waan sii jeeday laakiin waxaan maqlay qof caynaya oo yani leh qof yahay madoowe xun igu la yani marka yani ma waxaan isdhaahday macquul ma aha soo waan sii socday waan iska dhaga tiray markii dambe waxaan dareemay codkii iyo qayladii oo soo dhawaanaysa intaanan sii jeensanina waxaan ku baraarugay ayadoo gadaal laygaga booday oo la bilaabin xijaabkayga yani layla dagaalamay dad baa meesha joogay runtii Norwaychi qaar abaa joogay waxay sameeyeen qof yani runtii booliiska waa cilmi jirin markii dambe anigu aan arkay inay meeshu qoftani ayan yani sida igu sii deynayeen waxay noqotay inaan naftayda bilaabay inaan difaaco aan la dagaalamo aniguna si kastaba waxaan ahaa qof la gaaday kolayba oo xijaabkaygana waan ilaashanay waxaan diidayay inaan yani xijaabku meesha igaga dhaco marka waxa dhacay aan isla dagaalanay anigii gacan baa dhaawac iga soo gaadhay iyo dhaawacyo yaryar iyadana dabcan wax waa soo gaadheen nin baa baabuurka waday marka waxay tijaabiyeen isla markiiba meesha inay ka cararaan markay dhaawaci sameeyeen alaabihii oo dhan runtii dukaankii way ku daadisay banaanka hortiisa bas waxaa dhacday markaa inaan naagtii ka daba orday waxaan ka baqay runtii qofta sida ficilka aadka u foosha xun samaysay waxaan diiday inay baxsato oo yani aanan xaqeedii anaa booliis isu noqday runtii waan ka daba orday nin baa baabuurkii ka soo baxay markii hore waan ka baqay runtii inuu ninkuna wax yeelo laakiin alxamdulillah nin ajaaniba meeshii yimaaday baabuurkii baan kula dhagnay intaan baabuurka anu kula dhaganaa ninka ajaanibka wuxuu sameeyay runtii axsaan aniga weyn buu ii sameeyay wuu iska leeyahay waayo sawir buu ka qaaday taarikada booliiskuna waa ii sheegeen haddeen taarikada haynin kiiskayga lama wuu xidhi lahaa marka hadda alxamdulillah waa la helay naagtii waa la qabtay maxkamaduna waa 8 Abriil runtii waxaan dareemayaa maanta kaalin weyn bay Soomaalidu ka qaadan kari lahayd meeshan yani waxyaanaha loogu qabtayna waa wax laga fakiray bay ahayd oo waxa la yiraahdaa meeshan bay ajaanibku ugu badan yihiin goobtooda ha loogu tago because waxa laga yaabaa in la isleeyahay meel kale hadii lagu qabto dhib bay ku tahay laakiin aad baan uga xumaay runtii maanta in xitaa 10 Soomaali aan lagu ahayn meesha intaasoo boqol qof isugu yimaadeen waan ka xumahay waxaana rajaynayaa in yani Soomaali hadeynuna inaga laba dhibaato bayna haysata midna waa horta diinteena iyo xijaabkii oo laynagu cunsuriyaynayo ta kalena waxa weeyaan anagiyo dub madow marka laba ciladood markay ina haystaan waxay la tahay kulliba wayna roolkeena ka ciyaarno insha Allah xagana waa garanaa marka maanta ma garanayo wax dhacay runtii